Amaan raxiim maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamij aad iyo aad dadkii ay iga codsadeen kaasoo ah sida qoraal aad bold ooga dhigi karto. Dadka inta badan waxaa arkaysa inay soo qoraan qoraallo bold ah, qoraallo inta badan naqshad ay rabaan ay usoo yeelaan adigoo aad isweydiiso tirada qofkan ma iPhone wataa mise wuxuu wataa mobile caadi ah. Qofka iPhone ma uu watee adiga ayaa la rabaa in aad aqoonteeda lahaato. Maanta waxaynu u wareegaynaa dhankaas markaynu u wareegno runtii waxaa xaqiiq ah in dad fara badan ay inala faa'iideysan doonaan. Halkaan waxaa ku cad qoraal aan ku qoray ciid wanaagsan aan koobi gareysto. Ciid wanaagsan ayaa halkaan ku qoran. Qoraalada qaar kolkii aad aragto ama aad baartaba waxaad arkaysaa ayagoo bold usoo yeelanaa. Kuwa qaar waxaad arkaysaa inay bold usoo yeeshaan mise far waaweyn inay kuugu soo qoraan. Haddaba sidee adiguna aad far waaweyn ugu qori kartaa adigoo ka faa'iideysanayo aqoontaada. Qof walba wax waliba ayuu soo dhigaa, qof baa faa'iido soo dhigo, qof baa xumaan soo dhigo. Alla waxaynu ka tuugaynaa kuwa samaanta soo dhigan Ilaahay uu nagu daro. Ugu horreyntii waxaad qoranaysaa halkaan wixii aad u baahatay ama war ha ahaado mise hambalyo ha ahaato wax waliba. Kolkii aad qorato waxaa jiro website la yiraahdo Yetax amaba si fudud App Store ama Google Play ka soo dejiso. Waa kaasa sidaas ay ku qoran waa front, keyboard, sticker iyo symbols. Hadda anigu ii dejisan kolkuu ku dejismo okay aad leedahay si fudud. Marka okay tiraahdo qoraalka rabto marka qoro qoraalka rabto anigoo ah maamulaha channelka Somali News. Kadib wuxuu ku leeyahay fartaas rabta saar marka farti aad rabto ayaad saaran kartaa. Farta alla farti midaan saaro kadib koobi dhahso. Inta badan hadda waxay dadka qiimeeyaan kuwa ugu koreeyo kan ku xigo kan kale ku sii xigo. Dadka intaas ayay inta badan qiimeeyaan iyo weliba dadka waxay qiimeeyaan farta nooca loo yaqaano bold dadka inta badan bold ay xiiseeyaan. Marka waxaan rabaa weliba ayadoo jif ah koobi ayaan leeyahay. Waan ka baxaa waxaan galayaa paste baan ku dhahay marka qoraalkan soo koobiyay. Markaan paste ku dhaho waxaan leeyahay post inaad aragtaan rabaa si live waliba oodan is dhihin ma qoraal caadi ah miyuu sameeyay mise si caadi ah ayuu u sameeyay. Ku kaasa sidaas ayaan soo saartay. Waan filayaa inaad nala faa'iideysatay. Waxaynu soo wadnaa waxyaabo aad u far badan kaasoo ah sida live aad oga noqon karto gurubyada adigoo helayo likes badan, shares badan iyo weliba inta ku jirto ay ku daawanayso. Channelka hadda ku subscribe saar insha Allah.